والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرين إلهي بمهله السوق كاني كلن كقيمها بدن يا مالنتها قيمها بدن أي سوق ليسو شن يلا بتكر رمضان وليلة القدر جاعة دعانا إنه كدرنا أن وحنوني بوحويان raashin iskuulka la keenay si aynu u gaarsiin lahayn ubadkeena ugu qaybin lahayn ayaynu isugu nimi sidaad ka wada warqabtaan iskuulka waxa la keeni jiray raashinka la keeni jiray hore wuxuu ahaa qamandi garow iyo galley wada garanaysaan waynu wada ognahay ciyaalkeenu may cuni jirin mushkilad bay nagala kulmi jirtay ساولي ولا اللي يقول حساب تمشي تدال بدن أو وسارد السميسة كدب وحلا يسلقاتين راشينك لقوا الدلك أي نتشعل هاي لا ينوقدقو إذا أود ديجان كدتك كنا للدوران يا راشيك الله كرنين دور كراشين بالله يدين كاني أو دوش الله يديك كاني سببت الله يديكو كاني وحويان سكول كوفصحها يربدان لقوا شري ayaa dusha laydin kaga keenay raashinka nimika inoo yaala waayo raashinka qalalan ee laydin keenay waxa looga wada qaatay iskuuladoo dhan in wax isku mid la geeyo si uu qaybsamo raashinka kale ma qaybsamayo laakiin inta keentay waa in qaybsami karta lana qaadi karo doorka dambe raashinka la keeni doono iskuulka waxa ka turjumaya dadweyne intaas soo bariisa intaas soo baasta intaas soo hiliba intaas soo khudaara idinka qoranaya markaad qorataan kadib baad soo iibsanaysaan oo bakhaarka ka soo iibsanaysaan maanta laakiin raashinkan waa la idin keenay waxa la idinku keenayna waxa waa duruufta gaarka way raashinkan la idin keenay xaddi baa loogu tala galay marka hore iskuulka laakiin arday fara badan oo aan ku jirin baa iskuulka timi iskuulka 140 ayaa loogu tala galay in raashin loo keeno laakiin iskuulkiinu waa 170 ardaydiisu qaybta korodhay raashinku ba yaraynaysa laakiin doorarka dambe uu soo kordhaya oo tira koobta saxda la qaado ayaa raashinka loo keenay waxa soo dhan waxaan uga socdaa si qof kasta uu ogaado raashinka uu leeyahay inta uu yahay sidaynu ka wada warqabno raashinkii hore la karin jiray qof kasta waxa loo karin jiray xaddi uu ardaygu leeyahay haday 100 arday yimaadaan xaddi baa loo karin jiray haday 10 arday yimaadaan xaddi baa loo karin isku in looma karin jirin arday kasta wuxuu lahaa raashin u gaara imikana sidii uu buu leeyahay imika raashinka halka yaala ardaygu wuxuu leeyahay 6 kiilo iyo barbariisa ayuu arday kasta yeelanaya qofka 5 arday u dhigtaana in buu yeelan doonaa oo 6 baa loogu dhufo 6 iyo bar baa loogu dhufanaya 5tii ku hal arday u dhigtaana maxaa la siinayaa isagu hal qof buu yeelanaya wuxuu leeyahay saliida iyo misirkana mil 1 kiilo buu qofku leeyahay kalluunkiina wuxuu leeyahay 3 xabo marka qof kasta wuxuu xisaabsanayaa inta arday ee u dhigatay iskuulka maamulaha iyo gudida iskuulka intaas uu ka qaadanaya annagu waxaanu qaybin doonaa imika raashinka wixii kale aanu ka tagnana waxa qaybin doonta gudida iyo maamulaha iskuulka qof kastaba qalbiga ku qabso inta arday ku dhigataa haddii 10 arday ku dhigtaan waxaad yeelanaysaa 65 kiilo oo bariisa 30 xabo oo kalluuna waad ku dhufsanaysaa 30 kiilo oo saliida 30 kiilo oo misira intaas hadalka kala baxaysa haddii hal arday ku dhigtana ma 30 kiilo baan doonayaa ma 1 kiilo oo misira 1 kiilo oo saliida 6 kiilo iyo badh bariisa waqtiga gaaban dartii waxaan ku soo gabagabeyn doonaa anu inta waxaan imikana ku soo gabagabeyn doonaa gudoomiyaashu noo soo gabagabeyn doonaan maamulaha iskuulka iyo qof gudida kamida ku soo dhaw maamulaha